بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا السلام يا لمان ولا لهيك الصومالية يا مسلمين تبا آدي آد بان ugu faraxsanahay maanta inaan ka hadlo mowduuca aan ugu magac daray maxaa cusub. mowduucan maanta aan ka hadlayo waxa uu kaliya oo uu quseeyaa waxa weeye waa annisaa dumarka ayuu ka hadlayaa. tii ragga waan ka soo hadlay, marka tii dumarka ayaan ka hadlayaa hadda hadduu alla idmo. waxaan rabaa inaan idhaahdo dumarka walaalahayga Soomaaliyeed, qaar aan dhalay ay ka mid yihiin, qaar ilmana ii dhalay, xaaskaygaa ka mida, gabdhahaygaa ka mida, walaalahaybaa ka mida, ehelkaygoo dhan baa ka mida, ma kala reebayo. gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay xumaanta iska ilaaliya, xumaanta alla iska ilaaliyo. xumaantu waa ilaahay baa ina ka reebay. marka walaalayaal xumaanta aynu iska ilaalino. gabdhaha Soomaaliyeed waa dad gabdho wanaagsan oo aad iyo aad ugu dadaala horumarka gurigooda iyo reerkooda iyo ilmahooda, xagga waxtarkana ku wanaagsan, iyo in ama ehelka wax la taro ama waarid wax la taro ama ehelka la xiriiriyo. ragga waa kaga wanaagsan yihiin markii isbarbardhig aniga aan ku sameeyey. laakiin keliyaho waxaan rabaa waxaan ku dhaliilayaa waxaa ka mid ah ilaahay ha soo hanuuniyo kuwo badan oo ama rag xuni ha halleeyeen oo waxyaabo aan wanaagsanayn oo ficilaad aan wanaagsanayn ha baraan, ama shaytaanba ha duufsade ee kuwo badan oo social mediaha suuradahooda soo dhiga sawirro xunxun oo aan wanaagsanayn, filimaad xunxun oo aan fiicnayn, heeso iyo wax ilaahay ina ka reebay soo dhiga. marka waxaan leeyahay walaalahayga gabdhaha ah, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inii dooray in aad tihiin dad qaacidadii asaaskii guriga ama beydka ayaa ilaahay inii doortay. ilaahay wuxuu inii doortay in bunya taxtiya in aad noqotaan ama aad tihiinba. marka walaalayaal waxaan rabaa meeshii ilaahay inii dooray in aad ku adkaataan, oo waqti aakhiru zamana baa lagu jiraayo, shaytaanku uusan ini duufsanin. hooyadu waa asaaska guriga, hooyadu waa tarbiyaddii ilmaha, hooyadu waa nin kasta oo rajul kasta maaragta nin kasta oo wanaagsan hooyaa dhashay oo soo tarbiyadaysay. carabtu waxay yidhaahdaan idaa shufta rajula alcadiim waraa'ahaa mar'a cadiima. hooyaa soo tarbiyadaysay, hooyaa wax soo bartay, hooyaa uurka ku soo qaaday, soo korisay, soo barbaarisay, intaa la ekaysiisay, nin buu noqday. hooyo la'aanteed marka reerku, hooyadu waa asaaska guriga wey. asaaska guriguna haddii uusan adkayn, saqafku waxba ma qaban karo. marka waxaan ini leeyahay walaalayaal, waxa magaciina dilaya iska ilaaliya, waxa muuqiina dilayana iska ilaaliya, waxa diintiinna aanay ini farinin ka shaqaynayana iska ilaaliya. in yar oo ilaahay ha soo aslixiyo, ha hanuuniyo weeye waxa ka shaqaynaya aanay waxba la ahayn inay ama sawirro ama aflaam ay dhigto meelahan soo dhigaan. intaa yarna iska wacyigeliya. dumarku ragga wuxuu kaga fiican yahay waad isqabataan, waad wada xiriirtaan, guruubbada jira waa wada dumar weeye. marka waxaan ini leeyahay walaalayaal, wanaagga isugu yeera, xumaantana ka fogaada. diintan aynu maanta aynu ku dhaqmayno oo aynu ilaahay diinteenna samixa ah waxa xididda u ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii
uu tii rabbi u timi oo uu geeriyooday waa ummahaat almu'miniin weeye mudarasaad bay ahaayeen saxaabadii baa cilmiga ka qaadan jiray kuwo saxaabada ka mid ah ama mas'alo kasta oo laysku qabto ayaa loogu tegi jiray ilaahay marka wuxuu ina faray inaynu wanaaggana aynu isfarno xumaantana iska reebno walaalayaal guryaheenna iyo ehelkeenna iyo diinteenna iyo dhaqankeenna aynu ilaashanno duni aakhiru zaman baynu ku jirna qof kasta oo ama qarbiga aaday ama carab aaday ama soomaaliya joogay waxba kaa soo raaci mayaanin qof walba kitaabkiisii uunbaa ka dambeeya iyo wixii uu ku dhigtay ma garat allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi acuudu billaahi min ashaytaan arajiim وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي أني ظننت أني ملاق حسابي مركا waxaan ini leeyahay walaalayaal gabdhaha Soomaaliyeed gabdhaha walaalahaya anigu hooyooyinka ama dumarka Soomaaliyeed aad baan u taageeraa wanaagga ay sameynayaan iyo sida ay isugu tiirsan yihiin iyo sida ay diinta u faafinayaan waqt sabankii hore waa yaraayeen dumar jalbaabka wata ama is-astura maanta boqolkiiba 80 jalbaab bay wadataa Soomaalida laakiin inta magaceenna xumaynaysa oo social mediaha sawirada soo dhigaysa oo xumaanta ka shaqaynaysa oo hadduu ilaahay waa kuu roon yahay qaar baaba aan diinta ku wanaagsanayn oo hadday rabaan wax ka sheega marka waxaan leeyahay ma rabo inaan ku sii fogaado gabdhaha walaalahayga ah li'annahu xaaskayga ka mid ah gabadhayda ku jirta walaashay baa ku jirta hooyaday allah naxariistay baa ka mid ah habaryarahay baa ka mid ah kuwo aanu ehelnahay baa ka mid ah kuwa aanu muslimnimada walaalaha ku nahay baa ka mid ah marka walaalayaal wanaaggana isugu yeera xumaantana iska reeba intaan baan ku soo koobayaa sida aan ragga aan ula hadlay ama aan ula hadli doonana dumarka ulama hadlo sababtu waxay tahay dumarka in yar baa ku filan oo la yiraahdo ama loo sheego ama la faro laakiin raggu waa ragga meeshan aan maanta joogna ina dhigay Soomaaliyana mustaqbalka u diiday inay degtana u diiday marka iyagu ilaahayna waa ay la hortagi doonaan in xumaanta ay sameynayaan iyo guryaha ay baabi'iyeen iyo dhibaatada ay geysteen tii ilaahayna waa u dambaysa adduunkana waa lagu ciqaabaya adduunkana ciqaabku waa ugu imanaya aakhiradiina waa u dambaysa walaalayaal marka maanta waxaan rabaa inaan intaa ku soo koobo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh